بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى ولكن مع إبراهيم وحين كسوي دونا هالكي وحا أينو نوجبتي عشر كأنه ودن بي وكسي قادنا دروب كاب. دروب كاب هو محي. دروب كاب is the enlargement first letter of the paragraph. ووينينك إلا وينيو حرف الكوبات إيوانك. si loo weyneeyo xarafkaasi waxa aynu marka hore soo furnaynaa page-keeni oo aynu ku jirnay MS Word. Page-kii markaan soo furno casharkii waxaan marka hore aynu highlight gareynaynaa xarafka aan rabno inaynu weyneyno. xarafka S ayaynu hadda weyneynay ayaan rabnaa inaynu weyneyno. xarafka markaan highlight saaro waxaan tagayaa insert waan imanaya. insert markaan imaado waxaan ka tagayaa qaybta midig ee drop cap la yiraahdo. qaybtaasaan riixaya badhanka kadibna waxaan leeyahay iweyney. markaan soo saaro xarafkaygii waa isbedelaya. waxaa loo isticmaalaa qoraalada iyo joornaalada marka la weyneynayo xaruftaha xarafka koowaad ee koowaad. kadibna waxaan tagayaa qaybta hoose ee la yiraahdo drop cap option. drop cap optionka markaan ku dhufto waxaa soo bixi doona page-kan yar. page-kan markuu soo baxo waxaan ku dhufanayaa qaybta drop. qaybta markaan ku dhuftay dhexe halkan waxaa isoo baxi doona farta noocaan rabo ayaan qaadanayaa. farta markaan qaato line to drop, inta line ayaan rabo inaan hoos aan uga dhaadhaco xarufaha kale ay ka bilaabmi doonaan iyo distance-ka intay isu jiri doonaan ayaan distance-ka waxaan ka dhigayaa 0.5. kadibna waxaan leeyahay okay. cabirka intaan doono ayaan qaadanaya kolba intii aan u baahanahay. okay markaan idhaahdo xarafkaygi saas ayuu soo baxayaa. casharkaas waxaa la yidhahdaa drop cap. waxaan imanaa insert kadibna drop cap ayaan dooranaya. drop cap markaan doorto drop option ayaan tegayaa. kadib markaan tago drop optionka centerka ayaan ku dhufanayaa. waxaan leeyahay line to drop, inta line 3 ayaan hadda ka soo kacay. distance ay isku jirayaan xuruftuna waxaan ka soo kacay 0.5. kadibna okay waan idhi. aan kasii gudubno casharka ku soo xiga. waxa weeyaan casharka ku soo xiga text style. textka sida loo style gareeyo qoraalka idinka insha Allah akhrisan doona. markaad rabto textiga inaad style gareyso qoraalkii oo ku qoran ayaan imanaynaa. qoraalkii markaan nimaadno ayaan rabaa daba inaan casharkaygii qoraalkii markaan imaado waxaan leeyahay inta ciwaanka aan rabo inaan style gareeyo ayaan rabaa inaan highlight saaraya. highlight markaan saaro intii aan doonayay inaan dhammaantiin wada gaaro aan wada saaro line koowaad oo dhan. kadib waxaan tegayaa insert. home ayaan joogaa. home ayaan imanayaa. home markaan imaado waxaan ka dooranayaa qaybtan waxaa la yiraahdaa style. hoosta waxaa ku qoran qaybtan waxaa la yiraahdaa paragraph. qaybtana waa fontkii. stylekii aan rabay inaan ciwaankayga ka dhigo sare ayaan bartan ka dooranayaa. hadda waxaan ka dhigay qaybtaas labada ah. kadibna stylekayga saas ayuu igu soo baxaya. maxaan yimid home markaan doortayna style ayaan kasii doortay. casharkaasina sidaas ayuu isaguna aanu eegna ku sii xiga waa column. create a column. column-ka markaan rabno inaynu abuurno waxaa column-ka uu faa'iido weyn u leeyahay inaan page-kii warqadii aynan u kala jeexo 2 qaybood ama 3 amba intii ka badan. si taas aan u sameeyo waxa aan tegayaa ciwaankii casharkii ii qornaa. ciwaanka casharkaas ii qornaa markaan dib noqonayo waxaan leeyahay control Z. waxaan imanayaa isaan column-kii aan u raadiyo page layout. page layout markaan imaado qaybtan waxaa lagu magacaabaa page setup oo halkan wax ku qoran column. column-ka inta soconaya waa kaasi. column-kan ku dhufanayaa kadib waxaan leeyahay halkan waxa ku qoraya 1 2 3 4 1 2 3 imisaan ka dhigaa. haddaan 3 ku dhufto page-kayga 3 qaybood ayuu kala jebinayaa. marka hore maxaan tagay page layout. page layout markaan tagay waxaan ka doortay column kadibna waxaan kasii doortay inta iga dhigo. haddaan more rabo intaa in ka badan waxaan tagayaa more markaan tago kadib halkaan ka dooranayaa
imise number, imise column, imise qaybood ayaan ka dhigaa. 4 haddaan idhaahdo 5 6 sidaasi waa isi badinaya. laakiin waxaa ugu wanaagsan isbedelka in 3 ilaa 2. okay, markaan idhaahdo page-gii 5 buu jebiyey. casharkaasina waxa uu bartan aan ku qaadanay waa column-ka sida loo kala jebiyo. hadda waxaan rabaa inaan ku celiyo 1-kaygii. markaad rabto inaad halkiisa ku celisana page layout baad imaanaysaa. page layout markaad timaado column kadibna 1 ayaad kusoo celisay. okay, aynu kasii gudubno. casharka kusoo xiga waa border and shading. border and shading. Borders are lines of a graphic that around the page paragraph. Select text or tape cells. Shading is the color that fills the background of the selected text, paragraph, or a table cells. intan macnaheedu waxa weeyaan border marka aad rabto waa line wax xariijimo graph oo la sameeyay oo ku wareegsan qoraalkii aynu rabnay inaan qorno. marka hore dooro cellka aad rabto inaad qoraalka aad rabto inaad geliso cell. kadibna shadingkuna waa colorka waxa weeyaan ku wareegsan backgroundka. midna qoraalka ku wareegsan midna backgroundka ayuu ku wareegsan yahay. casharka kusoo xiga isagu sii qeexayaa waa to make your page look like casharka ku xiga isaga ayuu sii qeexi doonaa. bal border and shadingka si aynu isula eegno aynu soo qaadano page-kii aynoo qornaa. home aynu kusoo noqono. markaynu home kusoo noqono waxaanu imanaynaa qaybtan la yidhaahdo design. designka markaynu nimaadno qaybteeda midig waxaa ku qoran page border. qaybtaas ayaan ku dhufanayaa. kadib waxaan joogaa border and shading. border and shadingkaasi waxaan leeyahay box ii samee. boxka markaan doorto halkan waxaa ku qoran waa stylekii laymanka aan rabay ayaan ka dooranayaa inta style ee linekaasi uu ii noqonayo. waxaan ka dhigtay kaa madow. kadib halkan hoose waxaan ka dooranayaa colorka uu noqonayo maxay ahaday xariijinta wareegeedaasi. kadibna halkan waxaa kusoo bixi doona markiiba inuu isbedelo. qaybtan waxaan leeyahay ma documentka dhan baan ku apply garayaa mise documentka first page-kaan rabaa mise qaybta hadda aan wado ee this section-ka ah mise dhammaan oo dhan. okay, halkaas waxaan doortay full document. okay baan leeyahay. kadib page-kaygii oo dhani wuxuu noqonayaa inuu ku wareegsamo borderkii. waxaan imid design waxaan kasii doortay page color markaan ka doortay waxaan kasii doortay text boxkii markaan ka doortay qaybtan stylekaana waxaan ka doortay xariijimihii markaan doortay kadib okay ayaan idhi. halkaas waxaan ku qaadanay casharka la yidhaahdo border and shading. hoos aynu sii soconno. to make your page look like a certificate to do the following. si aad u ekaysiiso page-kaagii waa casharkii hadda aynu qaadanay oo qoraalkiisi qeexaya. designka ayaa tegaysaa. waxaad dooranaysaa maxay ahaday border and shadingkii. kadibna boxkiiba ayaad maxay ahaday dooranaysaa. kadibna page borderka ayaad kasii qaadanaysaa. kadibna click okay ayaad leedahay. casharka 9 waa arrange multiple windows. si aynu u arrange garan karno windows fara badan. windows ka xala daaqada hadda ii furan waa daaqad waa window. right click anywhere in the text bar. halkan hoose ee text barka hoose imka mouse-kaasi uu marmarayo meel ka banaan sida halkaas oo kale ayaan tagayaa oo ka dooranaya. markaan ka doorto waxaa ii soo bixi doona. markaan halkaa ka doorto waxaan dooranayaa cascade. click the tile windows horizontal, vertically or cascade window. example, show 2 tile windows. The right the text bar and then click undo tile or undo cascade to retain the single page window. qoraalkani waxa uu tilmaamayaa iminka halkaan imid meel bannaan oo text barkayga ima laha. kaasaan rabaa inaan masaxo. qaybtaan rabaa inaan meesha ka qaado si aan u helo space ii bannaan. halkaas iminka marka aan joogo qaybta midig ayaan ku dhufanayaa. kadibna waxaan leeyahay cascade window. cascade window markaan idhaahdo
waxa uu ka dhigayaa maxay ahayd labada daaqadood ee yaryar ee isleeg saan mid kastaba aan u arki karo. halkii marka aan ku noqdo aan rabo inaan ka noqdona halkii baan ku noqonayaa waxaan leeyahay undo cascade all windows kadibna qoraalkaygii sidii ayuu dib ugu soo noqon doonaa. switch between the documents windows si aad u switch garayso dokumentiyada switch between the documents window si aad u kala xidho daaqadaha ku furan. each open office document display its own button. page kasta oo ku furan oo Microsoft Office wuxuu leeyahay meel laga soo xidho sida halkaas oo kale wax close baa la yiraahdaa. close kaas leeyahay oo ku yaala text barka. button-kaasi waxa uu leeyahay meelo laga xidho lagana soo furo. qaybtan waxaa la yiraahdaa ku xigta restore waa ii soo gaabi qoraalkaygii. haddaan restore yiraahdo qoraalkaygii waa soo gaabinaya. haddaan button-kii ku celiyo waa ay kala bixinaya. qaybta hoose waxaan loo isticmaalaa maximize. markaan iminka aan anigu rabo maximize waa kala bixintii. minimize ayaan leeyahay. minimize marka yiraahdo halkaa hoose ayuu soo dhigi doonaa qoraalkii dhammaantii. eeg hadda markaan yiraahdo minimize dhammaan qoraalkii hoos buu soo dhigay. markaan click siiyana dib ayuu soo noqon doonaa. eeg haddaan idhaahdana waa soo xidh. casharkaasi isna waxa uu ka hadlayaa waa sida loo kala saaro ama hoos loogu soo dhigo qoraalada. setting up the page casharka ku xiga waxa weeyaan setting up the page. every document you produce and print might need a different page setup. choose the page orientation such as a portrait or landscape. si aad page-ka aad daabacayso aad maxay ahaday page-ka la daabacayo ayuu la xiriiraa casharkana. page markaad rabto inaad daabacdo waxaad dooranaysaa in mid jiifta iyo mid taagan si warqadii ama balar loogu daabaco ama dherer loogu daabaco. set the paper size and the page orientation. markaad rabto inaad dejiso paper size-ka iyo orientation-ka uu ku daabacmayo file menu-ga tagaysaa kadibna print baad leedahay. print markaad tidhaahdana waxaad tegaysaa page setup-ka kadibna waxaad dooranaysaa orientation-kii. orientation-ka markaad doorato kadib waxa aad sii tegaysaa default-ka aad rabto inaad ku daabacdo kadibna waxaad leedahay okay. bal intaan qoraalkan aynu isla eegno practicalkiisa. hadda waxaan joognaa file markaan joogno file waxaan tegaynaa print marka aan tagno waxa uu kasii qaado page setup marka warqadeydii halkan taalaa taasi aan rabay inaan daabaco. page setup ayaan tegayaa. page setup markaan tago halkan waxay soo dhigi doonaa laba qaab waa portrait iyo landscape. portrait-ku waa taa taagan. landscape-kuna waa warqadda qaybta jiifta. taas ay warqadii ay u jeebsanaysaa. margin-ka aynu kusoo qaadnay casharadii hore top inta aan kasoo kacayo waa warqadda intaa ii soo banay dhinaca cadifka iyo hoos ayay taasina la xidhiidhaa. kadibna halkan waxaan ka dooranayaa multiple pages inta aan rabo inaan daabaco. laba page ii daabac waxaan la imtixaanaa 2 pages per sheet. iga dhig halkii page ba hoos iyo xagga sare iyo xagga hoose ku daabac. marka normalka inta badan la qaataa laakiin labada dhinacba waad ku daabici kartaa. waxaad dooranaysaa qaybta la yiraahdo 2 pages per sheet. 2 pages per sheet alla iga dhig hoos iyo xagga sare iyo xagga hooseba ku daabac. intaa markaan idhaahdo waxaan siinayaa okay baan siinayaa. okay markaan siiyo warqadeydii saas joogta ayuu soo dhigay. marka hore maxaan imid file baan imid home file baan imid print baan ka tegayaa. print markaan tago casharkan ku celiyo page setup marka ayaan sii qabanayaa. page setup-ka marka aan tago aan kili gareeyo waxay soo bixi doonaa kadibna qaybtan aan ka dooranaya okay baan sii leeyahay. casharkaasina halkaasi ayuu inoogu sharaxay qaybta sida warqadda loo daabacayo. bal aynu sii eegno showing the toolbar-ka in markaad rabto inaad kolna soo saarto kolna aad hoos u dhigto. toolbar waxaa la yidhaahdaa intaa sare ee qoraalku ay ku qoran yahay ee muraayadda intaa sare ee kor wareegayo mooska xariijinta falaadhi ayaa la yidhahdaa toolbar-ka. haddaba si aan kolna u soo saaro kolna aan hoos aan ugu dhigi karo waxaan tegayaa